maalin gaar u ah hooyo. Walaalaha Faadumo iyo Kinsey waxay diyaarinayaan kaadhka maalinta hooyada. Ma ahan kaliya kaadh, wuxuu idin kaxaynayaa kaadhkan safaro yaab leh. Salaan, waxaan ahay Faadumo. Anigana waxaan ahay Kinsey. Maanta waxaan u sameynaynaa hooyo kaadh khaas ah, kaas oo noo kaxayn doona safaro la yaab leh. Waxa aan doonaynaa inaan u muujino hooyo jaceylkeena. Ina soo raaca. Subaxdii maalinta hooyada, hooyo shaqo adag ayay durtaba hore ka bilowday. Hooyo way daalan tahay. Maxaan sameynaa? Aan siino hooyo maalin lama ilaawaana. Gabdho. U sameeya hooyadeen waxyaabaha ay jeceshahay. Aniga wax walba waan heesta ah. Aan diyaarinayaa casho aad u macaan. Gabdhuhu waxa ay sameeyeen kaadh khaas ah oo loogu talagalay hooyo. Marka ay furto wuxuu u kaxayn doonaa safar yaab leh. Hooyo, tan adiga ayaan kugu talagalnay. Aad iyo aad aan kuu jecelnahay. Isla marka ay hooyo furtay kaadhka, wuxuu bilaabay inuu si yaab leh u iftiimo. Maxaa dhacaya? Kaadhka wuu iftiimayaa. Safarkii maalinta hooyadana hadda ayuu bilaabmay. Aan baxno. Meeshii ugu horeysay, hooyo had iyo jeer subaxdeeda waxay ku bilowdaa koob kafee ah. Tani waa qaybta ugu fiican maalinta. Laakiin hooyo, maalinteena hadda ayay bilaabatay. Waxa aan u maleynayaa hooyo inay aad u gaashaysnayd. Halkee u socona hadda? Waddo keliya ayaa lagu ogaan karaa. Mar kasta oo la furo kaadhka, waxa uu u iftiimaa sidii twinkle. Waxa uuna ku geynayaa meel cusub. Waxa aan rajaynayaa inay tahay meel cajiib ah. Aniga diyaar baan ahay. Aniguna sidoo kale. Meesha xigta maktabadda. Hooyo waxa ay jeceshahay inay buugaagta akhrisato. Waxba halkan kama jiraan. Sabaax, tuftaas. Waan qabtay, hawalwalin. Waa hagaag gabdho. Hooyo, miyaan xumeynay maalintaada gaarka ahayd? Maya, aad baan ugu faraxsanahay. Halkee u socona hadda? Hadda waa waqtigii hooyo ay ku nasan lahayd xamaamka. Ma puti baa, mise waa hooyo waxa khuurinaya. Hooyo ha nasato. Maxaa kale oo hooyo ka farxin lahaa? Aniga ayaa fikrad haya. Markan waa markii hooyo ay tagi lahayd dukaanka dharka si ay u hesho maryo cusub. Wow, hooyo aad ayaad u qurux badan tahay. Waxa aad u eg tahay boqorad. Mahadsanidin boqoradayda yaryar. Boqorad sare. Haye aan sameyno. Sidee ay u shaqaysaa mar kale?
bal batankaas riix. Markii la soo laabtay, aabba wuxuu u diyaariyey casho lama filaan ah. Inkasta wax yar ayuu ka kharaabay. Cashadu waa diyaar boqoradeyda. Aabba wuxuu u baahan yahay tababar dheeraad ah oo laha jikada. Mahadsanid dhammaan wax kasta aad noo qabatid. Qaybta ugu muhiimsan maalinta hooyada waa wada jooga iyo in dhammaan la iswada jeclaado.